تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii horumar ummadaada oo ka daawanaysaan TV-ga caalamiga ah Universal. hadafka barnaamijkan waa horumarinta arrimaha bulshada, dhinaca guurka iyo dhaqaalaha, waxbarashada iyo caafimaadka dhan walbo inaan ka eegno si aan u helno mujtamac toosan oo Soomaaliyeed hadduu Ilaahay yiraahdo. walaalayaal sida ogtihiin mujtamaca waxaa laga horumariyaa 3 meelood oo ay kala yihiin guriga, masaajidka iyo iskuulada. Soomaalidana waxay tiraahdaa alifka hadduu halaabo albaqruhu kugu dhibaa. haddii alifkii horumarinta guurka ama guriga uu naga halaabo waxay nagu dhibaysaa horumarinta mujtamaca, taasna waxay caqabad ku noqonaysaa horumarka dalkeena. marka waa nagu waajib qof walba oo Soomaali ah inuu aqoontiisa guurka u kordhiyo si aan u helno mujtamac ama jiil cusub oo toosan hadduu Ilaahay yiraahdo. runtii sida ogtihiin waxaa jira ayaamahan dhibaatooyin badan oo dhinaca guurka ah oo aan Soomaalidu ku ekeen oo mujtamacyo badan ama wadamo badan ay taabatay. taasna waxay u baahan tahay in xal loo helo. Soomaalidu waxay tiraahdaa midi hadday calool gasho maxay u gashay lama yiraahdo, sidee loo daaweeyaa ayaa la yiraahdaa. tusaale ahaan dowladda Malaysia ayaa markay aragtay furiinkii oo faraha ka batay ayaa waxay sameysay barnaamijyo lagu tababarayo dhalinyarada hadda isguursanayo, barnaamij 3 bilood ah oo dhalinyarada ay ku korsanayaan akhlaaqiyaadka iyo macaamilaadka guurka. barnaamijkaas runtii aad ayaa lagu najaxay, furiinki dalkaasna xoogaa wuu yaraaday. marka anagana waa muhiim yani inaan ka hortagnaa aqoon la'aanta guurka. runtii waalidiinta ayaa ugu muhiimsan oo bari kara caruurtoodii macaamilaadka iyo akhlaaqiyaadka guurka loogu baahan yahay. waxaa runtii dhibaato kale waxaa jirta, waalidiinteena lagama arko akhlaaqiyaadkii iyo macaamilaadkii oo diinteenii ay qabtay. tusaale ahaan waxaa jirta xadiid uu nabigeena yiri allahumma salli wa sallim alayhi, luqmad xaaskaaga afka u geliso waxay u degtaa sadaqo. marka dadkii culimada oo cilmi nafsiga markay fiiriyeen waxay yiraahdeen hadday caruurta arkaan aabbe oo hooyo afka cunno u gelinayo, caruurtaas waxay ka qaadayaan reenreyn, farxad, xataa koriinkoodii waxay noqonayaan koriin iijaabi ah. caruurtaas carada waa kontrooli karaan, nafsadoodii waa xakameyn karaan. waa camalkaas yar oo nabigeena noo sifeeyey kaliya haddaan ku dhaqanno. laakiin dhibaatadii waxay tahay ninkii Soomaaliyeed wuxuu ka aaminsan yahay inuu jaceylka xaaskiisa tuso inay tahay wax qalad, ama waxay u fahmayaan hadduu jaceylkiisa tuso inay markaas le buur isaareyso, markaas le haddana ay iskibrinayso. runtiina taas ma aha. xaaskii haddii ay kalsooni ka hesho inaad jeceshahay waa ku garab istaagaysaa, ixtiraam ayay waa ku ixtiraamaysaa. runtii sunanka nabigeenana ayay ka mid ahayd inuu u sheego xaasaskiisa inuu jecel yahay. waxaa jirtay sheeko laga soo wariyay Caaisha oo ay weydiisay nabiga, nabi allow jaceylka ay qabto suu yahay. markaasuu nabiga yiri waa sida xarig xoogan oo tadcan oo kale. markaasay sida markii loo joogo waxay dhahay nabi allow xarigga suu yahay, macnaa waxay ka wadaa jaceylkii suu yahay. wuxuu yiri xariggii weli sidiisu u xoogan yahay. markaasuu nabiga yiri Caaishooy kalama jecli haddaan hadda dhinto, maxaa yeelay markuu Ilaahay ii sheegay inaad adiga jannada ila galayso yani farxad weyn ayaan farxay. Caaisha markay arrinkaas maqashay waa kala daadaadatay, aad ay u faraxday. waxa kaloo dhibaato oo maanta jirto ah gurigeenii wuxuu ka maran yahay ixtiraamka. raggii waxa ugu muhiimsan ixtiraamka. rag badan oo yani ka cabanaya xaasaskoodii ayaa jira oo leh macna ixtiraamkii ayaa nagu yar. xaasaskina waxay leeyihiin waxaan la yaabanahay ninkeeniyo na go'doominaya ayaamahan. ninkana wuxuu leeyahay macnaa ixtiraam itus si aan kalgaceylkii aan ku tuso. marka waa inaan gurigeenii hadduu Ilaahay yiraahdo aan ka buuxinaa kalgaceyl iyo ixtiraam si caruurta gurigaas ay kasoo baxaysa ay u noqdaan caruur oo caradoodii xakameyn kara,
caruur oo dhinaca fiican wax ka arko xataa waxaa dhici karta inay daawo u noqoto caruurtan hadda maalan dowladaha reer galbeedka ah ee soomaaliyeed ee gaangiska galaya oo isdildilayo macnaa inay hadday ku kori lahaayeen guri oo kalgaceel iyo raxmad iyo ixtiraam jirto waxaa dhici kartay inay dabeecaddoodii ka duwanaan lahayd allahu aclam. marka waxaan ku boorinaynaa guri kasta oo soomaali ah yacni iyo dhalinyarada hadda guursanayo iyo kuwa mar dhow guursaday iyo kuwa hore u guursadayba guri walba wuxuu leeyahay shidaalka gurigaasna waa shidaalkii xaaska waa yani jaceylka, shidaalkii oo ninkana waa ixtiraam, shidaalka caruurtana waa aabba iyo hooyo isjecel. marka gurigiina shidaal lahaan hawadina hadduu ilaahay yiraahdo macnaa ku dadaala kalgaceylka iyo inaan u muujisaan caruurtiinan ay arkaan aabba iyo hooyo isjecel. waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo inaan iska bedelno caadooyinka naga qaldan. ilaahay wuxuu yiri ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim. isbedelku waxay ka imaadaa qofka nafsadiisa oo isbedelo. haddii aan rabno soomaaliya ee ahaan isbedel oo wax ku ool ah, isbedel miro dhala, waa inaan annaga iska bilaabnaa. meesha ugu muhiimsan aan ka bilaabi karnana waa gurigeenii. hadduu ilaahay yiraahdo insha allahu tacaala aan isbedel la imaano, gurigeennana aan ka buuxino kalgaceylka iyo ixtiraamka. daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. waxaan jecelnahay inaad ka faa'iidaysateen. insha allahu tacaala intii aan mar kale ku kulmi doonno waxaan idin leenahay daawasho wacan. jazaakum allahu khayran, anagana ilaaha noogu anfaco. maca asalaama, jazaakum allahu khayran. تهتف باسمك الدنيا بألوان من الشعر، يزغرد كل ما فيها وتزهو في ربى السحر. غزون العز ترسلها بكف الحب